arrintan kalluumaysiga ku saabsan iyo xaaladda dalkanagu uu ku jiro iyo dadkayagu iyo waxa aan haysano iyo sidaan uga gaajaysano waxaan rabaa marka hore inaan mahad celiyo cid kasta oo ka qayb qaadata mashruucan Blue Ocean hadda kuma soo koobay laakiin arrintan kalluumaysiga iyo maalgashiga kalluumaysiga ku saabsan kalluunku waxaan u malaynayaa Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer waagi hore waxaan oran jirnay xeebta ugu dheer marka laga reebo South Africa oo markaas waxyaalo kale ku sheegi jiray maanta waa waddanka labaad marka South Africa laga soo tago waddanka koowaad weeye isaga laba Soomaaliya laba xeebta ugu dheer waana dadka ugu yar ee ka faa'iideysan kara kalluumaysigaas iyo mashruuca xeebta inta leeg oo noocyada ugu badan ee ugu qaalisan laga heli karayo aan ka faa'iideysanayn dadka Soomaalida ah oo u badan dad reer guuraa ah ama reer miyi ah ama beeraley ah way ku yartay xataa isticmaalka kalluunka ay isticmaalayaan taasaa waxay keentay in dowladihii hore Soomaaliya ka jiray xilliyadii hadda dowladii kacaanka ahayd oo kale ay suuqa laba maalmood ka dhigto in kalluunka la isticmaalo oo la joojiyo xoolaha la qalayo magaalooyinka lagu qalayo si kalluunka loo isticmaalo gaar ahaan magaalooyinka xeebaha iskale mashruucaasi wuxuu dhalansiiyey dadka inay wax dad badan oo ka mid yihiin kalluunka dib u bartaan waan rabaa wasaaradda hortaan barnaamijka waxaan u soo qaatay inay soo daraaseeyaan maalinta laga dhigi karo horta usbuucii hal maalin baan ku dayaynay iskaashatooyinka kalluumaysiga ee jira iyo wasaaraddii inay la yimaadaan policy oo hal maalin oo usbuuca ka mid ah aan joojino xoolaha la qalayo si kalluunka uu noqdo waxa la isticmaalayo oo maalintaas suuqa si ay dadku u bartaan bal cunista kalluunka iyo faa'iidadeeda wuxuu leeyahay waxaan rabaa oo kale inaan soo dhaweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kalluumaysiga mashruuca ka shaqeynaysa inaan doonayno inaan la galno heshiis u fudaydino sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karana aan ugala shaqeyno haddii ilaahay la siiyo ruqsadaha shuruud la-aan ayna shaqeeyaan laakiin maanta ase Jubbaland wixii heshiisa ee laysanista la bixinayo ee ganacsata la siinayo Jubbaland baa bixinaysa state-kaas siinaya saasaana lagu shaqaysanaya kalluumaysigu uu ka duwan yahay beeca xoolaha iyo iibsiga xoolaha iyo wax soo saarka beeraha uu ka duwan yahay sababtoo wax bad laga soo bixinayo wuxuu u baahanayaa dhowr qodob oo isdaba taala waa marka hore in la helo shaqaalihii wax soo saarka kalluumaysiga khibradda u lahaa aqoonta u lahaa oon isleeyahay deegaankan aan joognaay Soomaaliya meesha ugu badan ee laga qaadanayay bay ahayd dadka ama quusa ama kalluunka aqoonta u leh khibradda u leh deegaankani deegaanada ugu badan buu ka mid yahay Soomaaliya ee laga qaadan jiray dadkaas waa anaga maanta potential baan ku nahay inaan dadka aqoonta u leh ee arrintaa kalluumaysiga ka shaqeyn karaay waxaanu Soomaalida kala dheernahay inaan anagu uga sii aqoon badanahay oo dadkii la helayo haddaad dadka hesho waxaad u baahan tahay qalabkii in laga caawiyo qalabkaas laga caawinayaay wuxuu isugu jira ama gaadiidkii badda lagu geli lahaa ha noqoto ama shabaagtii ha noqoto ama ha noqoto galaasiskii iyo wixii kabihii iyo waxaan lagu quusayo oo dhani oo wax u baahan dadka in qalabkaa laga caawiyo waxyaalaha cilada ugu badan waxaa ka mid ahayd dadka aada u qabsata waayahan dambena shabaagaha qaarkood oo la keenaya xataa inay yihiin kuwo caaga oo sababaya marka la dhigo badda ee laga soo tago hadday go-aan inay dhagxantii ay kalluunku geli lahaa ama argoostadu geli lahayd ama wixii intay isku xidhaan iyagu dhibaato kala geystaan laakiin shabaagta dunta marka la sameeyo ee la geliyo
shabaagta dunta ma geysato khasaare dhibaatana ma laha oo qalabkaas in sidiisa loo helo baxaarigu markuu qalabkii helo aqoonna uu leeyahay dooyihii iyo shabaagtii iyo wixii uu shaqadiisa ugu baahnaa uu helayo waxaa haddana muhiima inaad hesho facilitygii kale oo qaboojinta sababtoo ah waxaa hadda annaga cilada noogu badan ee baxaaridanada haysata ama kalluumaysatada haysta waxay tahay kalluunka ama xalay shabaga galay ama la soo jiiday ama lagu soo qabtay baashan kilmaadii dhe whatever sanaaro dhe lagu soo qabto marka lasoo qaado ee doontii lasoo saaro waxaa ku dhacaysa haddii uuna barafkii iyo storage inta halkaas iyo meeshii la keenayay aan loo helin inay noqoto in qorax kulli kusoo dhacdo sagxadda feebar galaasoo doontii lasoo saaro hilibkaasi ma noqonayo quality looga baahnaa ma yeelanayo taa markaa macnaheedu waxay noqonaysaa doonyaha kalluumaysiga in xataa lagu ogaado oo lagu dabagalo inay sanaad storage-ka qaboojintoodii cold storage-yadoodii yaryaaraa ee portable-ka la qaadanaya inay wataan si marka ay qaadaan ee wixii shaygii lasoo qabtaba loo gelin kara qaboojin oo mar walba uu fresh u ahaan karay taasi waa waxa ugu muhiimsan ee ganacsatada xataa yareeree localka ah shaqadeeda wax uga qaban karaysa muhiim bay u tahay midaas waxaa soo raaca suuqii la keenaya laftirkiisu marka hilibka xoolaha laga hadlayo hilibka xoolaha waa la dhigaa kawaanka waa la suri waxama noqonayo qaboojin uma baahna maanta oo dhan wuu sugnaan karaayo kolba waa laga goostaa laakiin kalluunku wuxuu u baahay inuu tallaajadii ku jiro oo qofkani kalluunka uu doonayo looga soo bixiyo oo loo soo saaro miiskiisa oo qaboojin ku jiro waxaan ka hadlayaa waa kan localka loo isticmaalayo oo ayna noqonin naado iyo wixii intii banaanka la dhigo xeebta lasoo dhigo inta yare uu nool yahay marka qoraxdaa badan ku dhacdo iyo bacaadka dhib baa ku dhacaya waana sida kalluumaysatada u badan tahay in arrintaa bal control loo sameeyo markaa kadib bay dadku waxay heli karaan kalluun nadiifa oo freesha oo ay cuni karaan oo caafimaad ay ka heli karaan oo ay u isticmaali karaan dariiq walba waxaa soo raacayaa waa markii ay iibgeyn iyo suuqgeyn noqoto intaa waxaa dheeraanaya marketka in la helo oo kalluumaystada ay helaan kow gaadiidkii lagu kalluumaysan lahaa oo ka waaweyn midka hadda aan ka hadlaya localka loo isticmaalayo iyo suuqii in la helo suuqaas waxaa muhiim noqon markaa storage-yadii in la helo kalluunka lagu ururin lahaa sababtoo mar walba qaboojin xooggan buu u baahan yahay kalluunku qaboojintu hadday ka dhacdo oo qabowga uu hoos u dhaco uu hallaabaya marketka iyo qaboojinta iyo gaadiidka qaadaya loogu talagalay suuqa ahaa intaa marka laysla helo dadku iyo maalgashadaha labaduba localka iyo dadka maalgashanaya intuba way faa'iidayaan waxaa saddexaysa in warshado la helo lagu diyaariyo waxaan hadda soo marayay gasacado la ii sheegay shirkado in berbere iyo lagu sameeyo ama tii laas qoray ha noqoto waan u baahannahay maanta inaan mashaariicdaas siyaalo badan uga faa'iidaysano waxaa dhibaato nagu haysata annaga waxaa la yidhi kalluumaysigiinii ma laha qualitygii loogu talagalay ma gaadhin meeshii loogu talagalay waa tagadiina hooseysa kanay noqonaysaa dowlado kalea lanooga soo iibgeeya hadda ma rabo dowlado inaan magacaabo dowladaha lanooga soo iibgeynaya waa kaanagii oo ruqsa la-aan ku qaateen waxay noqotay shabaagta aada xalay soo dhigtay markab weyne intuu yimaado inuu jiido oo shabaagtaadii oo kuu taallay ay noqoto inay burburto oo la baabay oo markab uu jiito habeenkii waxaad arkaysaa nalal waaweyn oo ku xidhan ilaa xeebta u soo dhowaaday waa kalluumaysato sharci darro ah kalluumaysatadii localka ahayd marka xoolahoodii markab weyne jiidanayo shabagiisa uu la tegayo maxaa ku dhacaya waxyaalaha markii ugu horeysay bari iyo ka abuurtay budhcadbadeeda haba sii xadgudbeen oo qaab ha sameeyeen laakiin waxaa ka mid ah cuqdad ka timid in qofkii ay shaqaysan waayeen waxay dhacday haddana oo qeyb ka noqotay in la jejebiyo dhagxaantii ay argoostadoo kale ay geli jirtay
dhagaxii oo dhan in la burburiyo waayo kalluunku qaarkii dee sukuurta iyo dhagaxyadaas ugu jira oo hadda saddexda nooc ay wax u cunaan xataa mid isagaas cuno hilib uu cunaa sida dadku xoolaha iyo hilibka u cuno mid dhagax uu cunaya iyo carradaas midna cawsku cunaya kan markaa dhagaxa haddii la jabiyo dhagxantii ay geli lahaayeen oo markab intuu yimaado wixii oo dhan la shido la jabiyo waxaa fogaanaysa maanta waxaa laga yaabaa xilliyada qaarkood habeenkii 4 doonyood oo badda u diray oo midka u badan 12 haabood saaran tahay hal tan inay keeni jireen oo argoosta ma dhacaysa maanta in la helo 4 doonyood oo hal tan oo hool oo argoosta keeni karay waayo waxaa keenaya dhagxantii way baaba'een godadkii ay galaysay argoostada way baaba'day wixii oo dhan maraakiibba ku waxaynaysa taas waa midda wasiirku uu ka hadlayay in la helo marines ama coast guard ama police coast guard oo at least xataa ule awood inay ka ilaaliyaan bal nalalkan waaweyn ee soo dhawaanaya maraakiibtan boobaysa ee sharci darrada ku shaqaysanaysa markabku hadduu deep seas wax ka qabsanaya la garay laakiin wuxuu soo gelayaa sababta kuwa qaarkood waxay soo galaan gudaha aada u hooseysa gobolkani maanta shilibiska laga helo goobweyn meel kaloo Soomaaliya ka mid ah lagama helayo bal xataa Kenya waxaan u maleynayaa webiga Tana meesha uu kaga daro badda laama ka koreysa meelahaas yaa ugu waxaysan laakiin kana ka waaweyn cabirkiisa iyo dhererkiisa markii la fiiriyo cidii maraakiib la timaadeen ganacsadaysa u soo dhisaan garaynaysa ilaan isagu uu ka duwan yahay waxaan rabnaa in loo fudaydiyo oo barnaamijkaas shilibiska oo kale wixii laga qaban karo lagala qabto oo aan annagu dowlad ahaan u fudaydino argoostada iyo kalluunka iyo sea jumperka iyo waxaasoo dhanna waa wax sidooda u yaalla maalgashato iyo ganacsato iyo cid walba oo invest garaynaysa waan ku soo dhaweynayna hawsha in lagala shaqeeyo waxaan leenahay jasiirado aada u tiro badan oo dhowr iyo 10 gaaraya oo baysas laga dhigan karo oo ruqsado loo siinayo oo laga samaynayo xataa laga samayn karo dekada yaryar oo kuwa kalluumaysiga waayo deegaankani wax badan oo faa'iido baa ku jirta marka waan rabaa inaan mar kale ku celiyo ganacsatada cid kastoo arrintaa diyaar u laysanka la siin waa lagala shaqeyn waa loo fududeyn saldhigyo gacanta lagu hayo oo jasiiradaha oo haab u noqon karo ay base ka dhigan karaan baa loo samaynayaa wax walba diyaar baan u leenahay